dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iskuma wanaagsana xiriirka oo ay ka safaaradaha oo ay kala qaateen sideed soo aragtaa marka hore khilaafka u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. runtii khilaafkan hadda jira waa khilaaf uu abuuray madaxweynaha xilligiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo isagoo uga gol lahaa inuu ka dhigto campaign iyo inuu yahay muwaadin iska dhigo laakiin Kenya iyo Soomaaliya waa dadarisa xiriir badan ka dhaxeeyo mid ganacsi ka dhaxeeyo mid ammaan ka dhaxeeyo oo ay khasab tahay inay wada shaqeeyaan ma kala guuri karaan bulsho badan oo Soomaaliyeed baa ku dhaqan marka in xiriirka la kala jarana waa meesha u dambaysa ee lagu kala dhinto weeyaan waxyaabo badan oo ka horeeya jira waxaasoo dhan ayadoon la xeerinin ayaa moodaa habeen 6 saac inta la soo toosay yiri xiriirkan u geyn arrintaas waxaan arkaa inay tahay mas'uuliyad darro waxaan arkaa inay tahay go'aan lagu degdegay oo aan laga fiirsan wixii khilaafaadoo jirana waxaa jira habab loo xalliyo la yiraahdo diblomaasiyadda ku salaysan arrintaas hadaan u guulaysto waddanka madaxweyne noqdo xiriirka Kenya nagala dhaxeeyo dib aan u soo celinaya wixii khilaaf ah oo naga dhaxeeyana dib baan uga wada hadlaynaa laakiin inta kale oo masaalix oo naga dhaxaysana aad bay u ballaaran tahay waa inay noqdaan masaalix labada dhanba ay wadaagaan oo wada ilaashadaan marka xiriirka aan la leenahay wadamada oo kale oo dhan waan hagaajinaynaa guud ahaan laakiin inuu yiraahdo madaxweynaha xilligiisii dhamaaday Ethiopia waxaan rabnaa wax walba waa fiican tahay wax walba waa okay ayadoo baaqaadka laga keeni karaa ayada maaragtay talada nalale waddankeenan ku daraynaa ayadoo cidna la ogeyn oo hay'adaha dawliga la ogeyn oo shacabka Soomaaliyeed la ogeyn Kenya ayadoo hadda wax ay dhabaha oo uusan bulshada Soomaaliyeed la wadaagin oo ku saabsan sababta keentay in xiriirka uu jaro waa arrin personal ah qabanaya oo shakhsiyan asagu uu ku raadinayay inuu dana siyaasadeed ku gaaro maahan wax waddankan masaalixdiisa mana difaacaynin mana difaaci doonto